dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in natiijo wanaagsan laga filayo howlgalka qodista shidaalka kaas oo dowladda Turkiga ay ku guda jirto iyadoo wali ay socdaan howlaha qodista iyo shidaalka sahmintiisa ee ku jira gudaha dalkeena Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya Daahir Shire Maxamed ayaa sheegay in dhamaadka sanadka 2026 la filayo natiijo wanaagsan oo ka soo baxda howlgalka baarista shidaalka ay wadaan maraakiibta Turkiga. Wasiirka ayaa sidoo kale xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay xoojiso iskaashiga kala dhexeeya Turkiga ee dhinaca macdanta, tamarta iyo qodista shidaalka, isagoo tilmaamay in xiriirka labada dal uu gaaray heer istiraatiiji ah oo ku saleysan iskaashi dhaqaale, amni iyo horumarineed. Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sanadihii dambe yeeshay xiriir dhow oo dhinacyo badan leh, iyadoo Turkigu door weyn ka qaatay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo tababarada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ayaa waxa ay hadda rajeynaysaa in iskaashiga shidaalka uu noqdo mid horseeda maalgelin cusub iyo horumar dhaqaale oo ballaaran. Markabka qodista shidaalka ee Jari Bay ayaa bishii hore soo gaaray xeebaha Soomaaliya isagoo u sii gudbay dowlad goboleedka Galmudug, halkaas uu ka wado howlaha qodista shidaalka iyo baaritaanka ceelasha la rumaysan yahay inay ku jiraan shidaal. Iskaashiga Soomaaliya iyo Turkiga ee dhinaca shidaalka hadda wuxuu galay wejigii labaad, kaas oo ah qodista shidaalka, ayuu yiri wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya mar uu la hadlayay wakaaladda wararka ee Anadolu. Howlgalka qodista shidaalka ayaa la filayaa in natiijo laga soo saaro 6 ilaa bisha 9 ee soo socda, sida ay sheegeen madaxda dowladda Turkiga, iyadoo rajada ugu weyn ay tahay in Soomaaliya ay hesho keed shidaal oo wax weyn ka bedeli kara dhaqaalaha dalka, kobcin kara maalgashiga, isla markaana abuuri kara fursado shaqo iyo horumarin dhaqaale u ballaaran.